أيها الأحبة، waxaynu isu sheegi doonaa in sha allahu tacaala inaynu xasuusina xowla aaya min kitaab illah. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswaة xasana liman kana yarju اllaha walyowma alآakhira wadakara allaha kahiira. aayadatan oo suurat اlaxzaab ka mid ah. axzaabna waa qur-aankii ku soo degay wakhtiyadii nebiga ugu adkaa calayhi الsalaatu wasalaam, oo dagaalkii gaal oo dham isu kaalmaysatay, hadday tahay quraysh, khatafaan, acraabtii kale, yahuud, mushrikiin iyo yahuud iyo cid waliba nebiga isugu timi calayhi الsalaatu wasalaam la ysu bahaystay, oo iyadoo laga yaabo dadka madiine degan oo dhami 3,000 oo qof inaanay ka badnayn xawaaley, ciidamo 10,000 oo qof isoo dul degeen, oo ilaahay qaswada markuu sifaynayo uu ku tilmaamayo in kor iyo hoosba lagaga yimid oo zilzaal inuu ku dhacay, ayaa ilaahay dadka muslimiinta wuxuu ku leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. allaam ilmuwaطa lilqasam iyo xarfu taxqiiq qad ah ayaa ilaahay isku daray. ilaahay baa dhaaranaya subxaanaه wa tacaala oo leh allaan ku dhaartee qad kaana lakum, xaqiiqo waxaa ah inuu nebi maxamed idinku sugan yahay uswatun xasana, ku dayasho fiican. ilaahay wuxuu yihi fii rasuuli illaahi, darfigu waa nebiga o dhan calayhi الsalaatu wasalaam. yani marka la yidhahdo fii rasuuli illah, meel gaara lama tilmaamin. fii aqwaali wa axwaali wa afcaali, nebiga dhammaantii baa idinku sugan tahay. ishiisa hadday tay, dhegtiisa hadday tay, gacantiisa hadday tay, lugtiisa hadday tay, nebiga dhammaantii ama axwaashiisa oo dhan. uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aab buu noqday, oday reer buu noqday, qaaduu noqday, imaam buu noqday, nebi iyo rasuul buu ahaayo u dheeraa, qaa'id caskariyuu noqday. waxa qof bini aadami shaqo qabto oo dhan buu qabto. dabeetana ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa fii rasuuli اllah, ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan uswatun aw iswatun, qiraa'ataani sabciyataan, ku dayashadaasoo xasana, ku dayasho wanaagsan. waxay culammadu yidhahdaan ama ahlulcilmigu, ku dayashada nebigu waa amrun muطaridun caam, waa qaacida aan istihnaaba lahayn inta badan. nolosha nebiga oo dhan baa ah mid lagu daydo. qof kasta oo muslima baa helaya meeluu kaga daydo. waa dhan kale haddaynu culumta basharka xataa eegna waxay idhaahdaan alkamaalu, dhammaystiranku ama cadamadu ama weynidu waa wax bini aadamku jeceliya uu ku daydo, xataa nolosha caadiga ah. xataa waxa aada cadiimka ku tahay haddaanu wax qiimo badan lahayn, bini aadamku cadamadu iska jeceliya. laga yaabo inaad aragto mid kubadda cagta ku fiican oo dadka o dhami daba raxlaynayaan. waxa uu ku fiican yahay waa kubad, ma aha nolosha wax qiimo ku leh. sidaan hore u tilmaamnay, haraggaa yare la buufiyey waa nolosha qiimo ku lahayn. idan cadamadu, qofku hadduu waxun ku weynaado, waxun uu magac iyo maamuus ku helo, aadanuhu wuu jeceliyay inuu daba socdo. famaa baaluka bisayidi اlbashar, maxaad u malaynaysaa rasuulkii ilaahay doortay ee bini aadamka o dhan sayidkiisa ahaa, oo rabbi uu ku tilmaamayo wainaka la calىa khuluqin cadiim, oo rabbi uu ku tilmaamayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin, raxmat اlmuhdaa.
ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kumaanan soo dirinba inaad tahay naxariis adduunka aan ugu naxariistay mooyaane. idan kamaalkii bini aadam uu gaadhi lahaay oo dhan nebile baa ilaahay wuxuu ina leeyahay ku dayda. maxaa lagaga dayanayaa? wax yar iyo wax weynba waa lagaga dayanaya. cibaadaa lagaga dayanaya, sida rabbi loo weyneeyaabaa lagaga dayanaya. tadbiirka ummadeed sidaa dad loo maamulaa lagaga dayanaya. siyaasad iyo hogaamin baa lagaga dayanaya. xikmad iyo aftahanimaa lagaga dayanaya. qaadinimo iyo xukun baa lagaga dayanaya. aabbanimo iyo zawjinimaa lagaga dayanaya. taajirnimo iyo baayac mushtar baa lagaga dayanaya. wax kasta oo nolosha ay u baahan tahay, in every aspect, wax kasta oo nolosha ka mid a ayaa lagaga dayanaya. ilaahayna wuxuu tilmaamayay nebiga la yidhi wa anna hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subal. ku dayashada bini aadamku wax ku daydaa, ku dayasho fiican iyo ku dayasho sayi-aba way leedahay. cid waxa fiican lagaga daydo iyo cid waxa cun ku caanbaxdo lagaga daydo. tan ilaahay wuxuu yihi waa uswatun xasana. qur-aankana qaar buu ilaahay inoogu tilmaamay yaqdumu qowmu fircawn isagoo dad hogaaminayo horseedaya oo horkacaya inuu aakhiro iman doono. bale suuraddaynu maalin walba akhrino ayaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala laba jid oo midna lagu dayanayo midna aan lagu dayanaynin. midna aynu ilaahay weydiisanayno in ilaahay uu ina mariyo siraata aladiina ancamta calayhim. jidna laynoo tilmaamay inaynu ilaahay ka magan galno oo gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin. jidka kuwa lumay iyo kuwa rabbi uu cadhaysan yahayba. maanta adduunku xaala xarija buu ku taagan yahay, critical point. waayo waxaa lumay qiyaadaadkii bini aadamka ee lagu dayan jiray. adduunka mashaakil badan baa ka taagan, dhan kasta oo laga ego. mashaakil siyaasiya dunida ka taagan, mashaakil dhaqaalaa ka taagan, mashaakil caafimaad baa ka taagan. noloshoo dhan baa qasan. duniduna way weyday qiyaada. dad marmuuqoo la dabagalo way weyday. ilaahayna waa itixaamay. imtixaanaadkaasoo loogu talagalay lacallahum yarjicuun, lacallahum yatadaracuun. bal bini aadamku marka la gelgelo ina inuu rabbigii u noqdo ama ina inuu isu dhul dhigo. dadkii muslimiinta ahaa markii la yidhi rabbigii ku dayde ee saxaabadii nebi maxamed aha waa ku daydeen. kuwii ka soo horjeestayna way diideen uswada xasanka ah ee gaaloobay. oo maxay qaateen? waxay dhahaan dhaqamadayada iyo aabbayaashaya wixii ay ahaayeen, ina wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa ina calaa aahaarihim muhtaduun. aabbayaashayaan ugu nimi oo dhaqan iyo hiddo iyo qaab u nool, kaas baanu raacayna. ilaa alla ka leeyahay awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun. aabbayaasha miyaa la yskaga dayanayaa haddaanay maan qabinba, haddaanay waxay samaynayaan wax maangalaba ahayn, ama aanay ariiq hanuunsan maraynin maa lagu dayanaya? waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah wa ila arasuul qaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shayئa walaa yahtaduun. kuwa quraysheed waxay lahaayeen aabbayaashii aanu ku dayanayna. ka waran kuwa yidhaahdaa aabbana ku dayan mayne gaalada yadaanu ku dayanayna. kaasi aabbaabuu haystay abtirsiin uu lahaa waan ku dayanaya. amaa muslim badan oo maanta jooga waxay leeyihiin inaa wajadnaa kufaarana calaa ummatin wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun. gaalada yadaanu aragnay oo waddo ku socota, annana gaalada waddadeedaanu qaadaynaa. waxaa aada u cajaba
marka la yidhaahdo nebiga ha lagu daydo calayhi salaatu wasalaam muslimka maanta joogaa wuxuu ka fekeraa ee ugu badan haddiiba uu is idhaahdo ku dayo cibaadada iyo meelaha salaada iyo intaa in lagaga daydo amaa wixii intaa ka baxsan haddii la yidhahdo tijaarada ha lagaga daydo maya waa arrimaha dhaqaalaha iyo diinta isku qasin baa la leeyahay dunida maanta joogtaa interest la-aan iyo ribo la-aan socon mayso saa daraaddeed ina calaa kufaarina muqtaduunkay taagan yihin haddii la yidhaaho siyaasadda kaga dayda ama dhaqaale kaga dayda iyadoo weliba gaalka ay sheegayaan uu qirayo taariikhda aadanaha ciddii waktigii ugu koobnayd noloshoo dhan ku guulaysatay inay muslimuun yihiin weliba raggaa ku guulaystay ee dunida hoggaamiyey may ahayn taariikh hore iyo cilmi hore dad leh saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii dowladoodee waaweynaaye hareeraha ka xigay midna may ahayn waxay ahayd dad dhul saxaaro a degan oo fawdo ah waan dowlad iyo nidaam iyo kala dambeyni ka jirin oo ninkii qofkii la boobi karo la boobo kii la dili karana la dilo haddana dadkii caynkaa ahaa markay nebi maxamed ku daydeen calayhi salaatu wasalaam wakti aada u kooban bay nolosha ku hoggaamiyeen gaalla martin la yidhahdaa wuxuu yihi waxa bini aadamku wax ku qiyaasa haddaynu ku eegno waa ciddii buu leeyahay ku guulaysatay smallest of means yacni waxa uu hante ee facility ama dhaqaale ama awood ama ciidan ama dadku haystee ugu yaraa haddana nolosha maximum ka gaadhay buu leeyahay halka ugu sarraysa gaadhay ma jira buu leeyahay cid intii uu haystay in leeg haysato isbeddelka intaa leeg samaysa waa marka lagu xisaabtamayo noloshan maadiyaadka ah idan haddii tajribo la rabo nidaam la tajribeeyey islaamku iyo saxaabadii way tajribeeyeen waa nidaam saxa oo dadkii ku dayday ee horu mareen nolosha tan aynu ku nool lahay ee ku horu mareen ta aakhirana in shaa allahu dadka ay ugu horeeya noqon doonaan sawgeed baa ilaahay ummadda wuxuu ku leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixayn ku yaalla wuxuu ku tilmaamay muslimiinta isagoo la hadlaya buu wuxuu tilmaamay latattabicunna sanana man kaana qablakum sanana man qablakum caadaadkii iyo dhaqamadii iyo manaahijtii iyo qaabkii ay raaci jireen dad kaloo idinka idinku horreeyey baad raaci doontaa taaka taaka iyo dhudhudhudhul xataa hadday galaan buu nebigu ku tilmaamay xadiidka god masalugalay masalugalay ama masacagalay waxaad tidhaahdaba godkeed hadday galaan waa ka dabageli doontaa waxay dhahan yaa rasuula allahi alyahuuda waannasaara ma yahuud iyo nasaaraanu raacayna qaala faman xadiid kalena waxay yidhaahdeen alruumu waalfurus qaala faman yahuud iyo nasaara miyaa la raacaya oo yaa kale buu nebigu yidhi room iyo bershiyanka miyaa la raacaya oo yaa kale buu nebigu yidhi shuraax ilxadiid waxay yidhaahdaan marka laga warramayo daa-u tadayunna dadka diintu inay khalkhal ka gashana waa alyahuudu wanasaara marka lagaga warramayo bay yidhahdaan maamul iyo boqortooyaa caynkanna waa alruumu waalfurus bay yidhahdaan labada gooreu nebigu mid walba leeyay faman yaa kale maanta waxaad moodaa yaa kaladii uu nebigu sheegay inay taagan tahay oo marka muslimiinta iyo dhaqankooda la eego ilaahay qur-aanka daa-u ahlulkitaab wuxuu inoogu tilmaamaya wama اkhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaaءathum ismay khilaafin kadib intii bayinadu u timi mooyaane bagyan baynahum baa ilaahay yihi
iyagoo isku xadgudbaya xaasidnimo iyo baqyi daraaddeed. waa daa-u tadayun. dadku iyadoo diinta ay waadixtay haddana inuu murmo unoo ishayo oo iskhilaafo. ama daa-u tadayunka ay qabaane qur-aanku uu sheegay waxaa ka mid a atataruf. ambiyadoodii intay ku xadgudbeen inay yidhaahdeen waaba ilaahiyo. haddii la eego dhan maamul iyo wixii la midana daagalkani ama xanuunkani wuu yaallaa. aadanuhu sidiisaba ku dayasho kaba maalmo ma aha qof cidlo joogi kara. walidalik ba xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi kuwa ku dayo ulaaئika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi. inta ilaahay ambiye iyo rusul ka soo warramay baa rabbi wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaasi waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadi. iyaga hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. culammadu waxay yidhaahdaan marka aadam iyo xawo laga reebo inta kale ciday ku dayataan loo yeelo. aadam iyo xawana iyagaa tajribada la geliyey. iyagu cid ka horreysa ay ku daydaan may haysanin. iyagaa tajribo la geliyey oo la yidhi jannadoo dham waa idiin fasaxantay geedkaa iyo indaa mooyaane ha samaynina. kadib bay sameeyeen. kadib bay arkeen xumaha ciqaabtiisu waxay ka tahay. kadib baa ilaahay yidhi haddaba dhulka taga. ilaan marka horeba dhulkaa loogu talagalay innii jaacilun qur-aanka waa ka ilaahay ku tilmaamaya in loo yeeli doono dhulka in loo yeeli doono khaliifa. laakiin dhulka intaanu iman baa lasoo tababaray. amaa dadka wixii ka soo hadha iyaga qudwo kama maarmaan qudwaa loo sameeyey. waa ambiyadii, waa rusushii, waa saalixiintii. dadkaa in lagu daydo. waayo ku dayashadu kow aadanu kama maarmo almithaali alxay, tusaale nool. wa ilaa diintu iyadoo kutubuunbaa la keeni lahaa haddii kale. waxay yidhaahdaan qoladan xataa galbeedka ka waranta fikrad aan cid lahayni ma socota bay yidhaahdaan. fikrad aan modal lahayn cidda lagu arko oo ku dhaqmayso oo lagaga daydaan lahayn ma socoto. walidalik diinta maanta o dhan haddaad wacdi ka dhigato socon mayso. laakiin markay noqoto dad ku dhaqmaya la arko modal ay yeelato wax la raaci karaa ay muuqdaan. maanta waxaan odhan karnaa afcaasha muslimiinta ayaa in diinta la qaato hortaagan. dhaqanka muslimkaa hortaagan. waayo inaad tidhaahdo diintu way fiicantee ku dhaqma gaaloy anigu se ku dhaqmi maayo waan haddana rumaysanay dee wax bini aadam yeela ma aha. yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ba ilaahay. waxaynu odhan karnaa inay diintu socoto waxa hortaagani waa dhaqanka muslimka. low intiina halkan joogta ahaan lahaydeen dad aan been sheegin oo wax khiyaamaynin oo tijaaradoodu quman tahay oo diintooda si dhaba ugu dhaqmaya cidda idin ag joogtaa idinkoo aan u yeedhin bay islaami lahaayeen. cidda idin ag joogtaa idinkoo aan afka ka hadal ayay islaami lahaayeen. waayo afkaartu bay yidhaahdaan kama maaranto mithaal xayiya, tusaale nool oo lagu daydo. waa mar labaadee tusaalaha lagu daydaa wuxuu sheegaa waxaan inaanu mithaali ahayn. mithaaliga waxaa la yidhaha ideal, wax maskaxdu qurxisay laakiin nolosha aan ka suurtagal ahayn. waayo haddii la arko qof quman ugu dhaqmaya wuxuu tusaale u yahay in waxaan yihiin wax la practice garayn karo. in nolosha caadigaa lagu practice garayn karay tilmaamaysa mumkin inay tahay in lagu dhaqmo. dadka atbaacda ahina hadday qaadadu qaadato mabaadida si dhaba ugu dhaqanto nadra daqiiqa bay yeeshaan ay u fiirsadaan dhaqamadoodu intay leegihin. walidalik caamada waxa laga yaabaa in badan inaad aragto iyagoo idhaha wadaadaduba saasa yeela wadaad yacni wadaadka waxaa la xisaabinaya isaga
وحكسته وأي قدوة ولا الرجينية إنه ضدك وحي كود ضيدان نقضى بل لغا الرجينية سيدا وقاد وحكسته وصمية والله في رسانية وفي رسان النبي محمد سيدا يقول ديانيا صحابة صلاة بو قلي حديث كابي داود ورينيا صلاة بو النبي بو قلي سيدك النبي سيدا كوين كان في قطيفة ظهري وحني بقولي سيدك النبي عريش مسكاها على أنت تمرتك السميسان قدوهنا عيد يهي dabeetana dadku markay doonaan iyagoo kabahooda sitay la soo geli jireen masaajidka iyagoo kabahooda sitana way iska tukan jireen nabiguna wuxuu sheegay kabihiinu haddii aad dabadda ku soo marteen dhulka ku xoq oo unoo ciiddaas ay idin daahirinaysa nabiga salaad galay saxaabadiina way ka daba gashay ka daba xidhatay kabahoodiina waa xidhan yihiin nebi maxamedna kabihiisii buu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna kabaheedii bay xidhantay salaadii bartanka markay marayso ayuu nabigu labadii kabood bixiyey saxaabadina iyagoo salaada ku jira ay iyaguna labadii kabood iska bixiyeen wala salaadii lagama bixin nabigu isagoo salaadii ku jiro kabaa bixiyey saxaabadina iyagoo salaada ku jira kabihii bixiyeen markuu nabigu salaada dhammaystay ayuu wuxuu yidhi waxaan arkay idinkoo kabaha iska bixiyeen ما حملكم على إلقائكم ما حائدكم حنبارين إن طورتان نعال كبيرين إن طورتان حكما يستقبل حسين أيو النبي ويدي عليه الصلاة والسلام هاي هذا وحنا نعلم أديكو كبها يستقبل حيي أنا واسكبل حنا مركا وفيرسو صحابة النقل كودو وحشوبي إن النبي قال عليه الصلاة والسلام سؤال ويدي محط كبار بحسين الله أنا لو رأيت وقرأت كبه أنا نسكت شنان هدو بين ويدين دون نبلا ده وكبه يسكت بحيي بمجرد أي أركان إنه كبه بحيي وحي وأركان النبي محمد الله قد ضيدين يقول لي باني النبي محمد الله قد ضيدين يقول لي باني عليه الصلاة والسلام إنه سمع إيماننا بالله وبرسوله وحل يسويدين يا وحردين دي تقاضى النار ما إنه هذا أرمى الدولة مدن سعويدة أرمى واحد كان يقول معنا يعني واحد يقين سنة شك أنا في كلا جلا هينين وشلو والله شك قبض بقالة هدي السلام كلا قد بقى أرمى لك عاية وحبس عوايا من العلمانيين الصحة يراه دواكرة ضد بضارنا ومسيل وهتسمو ده إن شك بوجهه هذا السياسة ده كنا قلنا الإسلام كأرمي نقول يسوينا هذا إنه كنا قلنا أرمى شك بوجهه صحابتنا كبوا يسكب بحية يسقوا صلاة كنا يرى كبا يسكب بحية مركو يدين حا كبا يسكب بحسنا واحد هذا وحنا نوارقنا هذه هو كبا يسكب بحية أنا نواسكب بحنا nabigu kuma odhanin markaa oo maxay ii weydiin weydeen iyo maxaa kan u yeeli weydeen inay ku daydaan wuu u qiray laakiin wuxuu u sheegay sababtii isagu kaba isaga bixiyey wuxuu yidhi aniga jibriil baa ii yimi isagoo salaada ku jira nabiga loo soo waxyooda waxaanu ii sheegay kabahaygu inay qadar leeyihin yacni najas wax xun kabahayga in najaasa ku taalluu ii sheegay sidaa awgeed baan isaga bixiyey salaada adigoo ku jira haddaad ogaato cumaamadaadu inay najaas leedahay waa la iska tuuraa oo salaadaada lagama baxee ama kabtaadu najaas leedahay waa la iska bixiyaa saasaa la ii sheegay buu yidhi markaasuu wuxuu u tilmaamay sida ay yeelayaan haddii midkiin uu masaajidka soo galo buu nebigu yidhi ha eega labadiisa kabood in wax ku yaalin iyo inaanay ku oolin haddii aanay ku haddaad wax ku aragto dhulka ku masax buu nebigu yidhi oo dabeetana ku tuko يعني كما واحد طه وحي هوستك كجدجا واحد طاهر وين عيدا لغو مصحه لما ما يرد كبت حاجة دوسة إن عيدا أنت لغو مصحه لغو تكذو تمام إذا ما هذا مساجدنا للنظيفية كربت يلا ما يريو تتكوا سلي كلات ما دينا تلاذا وكنت كريا معها وحين كوا ربنا نقول عيدا هذا كنت كريسو إسكابنان
inaanad kabtaada inaad ku tukan karto haddii aada masaxato. xadiidka imaam abu daawuud iyo daarimiba waa wariyeen, sheekh alalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya. dhibta taalla waxay tahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiin badani ku dayashadiisii way ka tageen. laba mid uun inay jaahiliinba ka yihiin, diintaba inuu jaahil ka yihi, ama dee dadkaa shakigu soo gaadhay inay yihiin. taa waxaa ka sii daran gaalka wixii manfac lahaa lagagama dayane wixii aan manfac lahayn baa lagaga dayda inta ugu badan. maxaan uga dan leeyahay? gaaladu waxyaaba la ogolyahay in la kala qaataa jiro bini aadamka oo dhami wadaago, oo muslimiintii horeba ay ka qaateen, persian iyo romans iyo cid kasta ay ka qaateen, iyo waxyaaba aan la ogolayn in la kala qaato. waxa la ogolyahay in la kala qaato waxaa ka mid a waxyaabaha kan manaaficdan dunawiga, yacni maalan technologygan. laakiin waxa weeyaan waxa manfaca lihi waqti iyo juhdi iyo sabr iyo aqoon bay u baahan yihin. laakiin dadku inta badan muxuu kaga daydaa waxaan manfac lahayn, timahoo la xiirxiira iyo dhafaradoo la caddaysta iyo maryahoo la jeexjeexa iyo waxaan aakhiriya adduuntoona wax tarin. dhalinteennu ama dadkeennu waxa aynu reer galbeed kaga dayannaa waa maxay? hadday kaga dayan lahayn sida dayuuradaha loo sameeyo iyo sida madaafiicda loo rakabtay iyo sida rag laysaga celiyo, dee waxaynu odhan lahay waxba soo kordhisay, ku dayasho macna samaynaysana way noqon lahay. laakiin haddii waxa lagaga dayanayaa uu noqdo maryaha la xidhanayaa noocay u ekaadeen, imka masaajidda muslimiintaad soo gelaysaa, qofka kaa horeeyo qaawan baad arkaysaa sujuudsan, waayo maraduu sito ayaa maro faranji loogu talagalayoo dabada hoosteeda ka xidhanta. nin salaad tukanayo cawradiisi muuqataad arkaysaa, salaadna wuu ku jiraa. mid muslim oo dhaforada xiirtay, qasac sameeyey, timaa badhna muldhiyey, badhna soo daayey. idan waxa aynu kaga dayannoo dhami akaruhu waa wixii layna yidhi ha kaga dayanina. wixii in uun suurtoobi lahaa in laga soo qaatana maynan ka soo qaadanin. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu markaa inoogu tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswaة xasana. maxaynu ugu dayan weynay? waxaynu ugu dayan weynay cid gaara baa la yidhi baa nebi maxamed uswa xasana ugu sugantay. waa ayo? liman kana yarju اllaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira. waa kuwa ku dayan kara nebi maxamed. kow, liman kaana yarju llah, kuwa ilaahay rajaynaya, ilaahay rumaysan, liqaagiisa rajaynaya, ilaahay markuu la kulmo wuxuu odhan doono ka fekeraya, ilaahay iyo weynidiisa iyo cadamadiisa kuwa garanayo, rabbi rajaynaya, rabbi iyo xikmaddiisa garanaya, og ilaahay dunida tani inay isaga gacantiisa ku jirto. sifada labaadee la siiyeyna waa maxay? waa aakhiro kuwa yaro rajaynaya. nebi maxamed ariiqiisu dadku u fududya raacaya waa dad ilaahay rumeeyey, aakhirana agtooda ku weynti. nolosheenna intay aakhira ku weynti, intay se adduunku ku wenyahy. dhan kale aan ka eegno, imse saacadood baynu dunida balaangaraynaa, imse saacadood baynu si aakhiro balaaninkeeda ku jirnaa. odayga caruur dhale wuxuu yidhaahdaa caruurta iskuul ka saar, jaamacad ka saar, waxaas ha noqdo, ha guursado, ha shaqo tago, waxaasoo dham waa adduunka balaankiisii.
intee baad ballaangaraysaa ilmahani aakhiro siduu u badbaadi lahaa waxaad ballaangaraysaa tijaaradaada sanadkan waxaad qaban doonto ka dambeeya dhaqaalo markuu soo galo si aad yeeli doonto inta waxa aad samayn doonto waxaad ballaangaraysaa inta jaamacadooda aad ka bixi doonto waxaasoo dhami waa umuur dunawiya taa iyo waxaad is dhinac dhigtaa aakhira inta ay kuugu jirto qiimaynteedu imse saacadood baad ka fakartaa imse saacadood baad gelisaa aakhiro dee ninkana ugu fiicane waa ninka 5 salaadood oo jamca tukaday waxoogaa wardiyana ku daray marka la isku wada daro waa 1 saac wardigaaga iyo salaadaada iyo waxaad iyo dhan markaad isku darto inta kale adduun baad u shaqaynaysaa qur-aankana haddaad eegto waxaa laga yaabaa safxa fi kitaab illaahi aan labadaa mas'ale ku oolin inaanay jirin ama alle iyo sifaadkiisa iyo weynidiisa ka warramaysa ama qiyaamo iyo janno iyo naar iyo siraad iyo cadaab iyo wixii la halmaala ka warramaya safxo qur-aanka ka mid oo inta la rogo aan labadaa mid un wax kaga ooline waxaa laga yaabaa inaanay jirin 600 صفحة تمعنى هذا وحويان انتو قرآنكو أهمية سيئة مسألة تاني إنه الله هي صفات كيسا كورمه يا عظمة ديس يا وين ديس يا آيات كيسا انتو سي أهمية سيئة آخرية مآل كدبينو كورمه وانت غبضا إذا ضدك انت سراديسو أيها أقوى النبي محمد كضيانيا صفة الصدحات اللسيين ومحي وذكر الله كثيرا أي وذكر الله ذكرا كثيرا إلهينا حصة إن بدن باليري إلهي حس كيس أنا عرب كيس كائن قاقين ذكر هو عبادة قرى أن وقت لهين أن هيئة لهين صفة قال الله هيئة وقت كستاد سمين كرتو داد ويسقبتي هداد شرابة لدي هداد عادي تهي هداد طاهر تهي هداد سوق مريسو يا هداد سلاد كتشرتي هداد شيفتو وعبادة سكة استوى الله سمين كرو dadka se hadda inta badan waxay kaga soo hadhay salaadaha dabadooda uu ninkii ka gaarsiin kara salaadaha dabadooda uu ninkii ka gaarsiin kara laakiin waqti kale cid adkaar samaysa waa wax iska yar ilaahay markaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dayafsho fiicanay ugu sugan tahay ciddii saddexdaas sifo leh hadday saddexdan sifo agteenna ku bataan oo ku weynaadaanna ku dayashada nebi maxamed way fududaanaysaa calayhi salaatu wasalaam hadday saddexdan sifo agteenna ku yar tahayna dee iimaankao dhan baa daciifaya ku dayashadoo dhammina way yaraanaysaa saxaabadiina waxaad garanaysaa siday u rumaysnaayeen wax kasta oo nebiga ka yimi siday u rumaynayeen abibakar ayaa maalintii markii nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey alisra walmicraaj beyt almaqdis la geeyey haddana ilaahay samada qabadsiiyey ee la soo celiyey ee uu quraysh u sheegay inuu xalay beyt almaqdis tegey ayay quraysho ku jees-jeestay waaba la isugu yeedhay balkaalaya maantana ninkii wuxuu sheegayo beyt almaqdis iyo maka iyaga safaradoodu bil bay sii socdaan ninkani meeshii aynu bisha u socon jirnay buu wuxuu leeyahay xalay baan intaan tegey haddana ka soo noqday warbal isu kaalaya ninkii wuxuu ku hadlayo markaa nebiga waxaa la rabay in lagu jees-jeeso la iskumaba warramayo cirkaa loo kaxeeyeyba iyadu talada kuma jirto waxa muranku ka taagan yahay waxa weeyaan maka ilaa iyo beyt almaqdis baa muran ka taagan yahay ilaahayna waxaynu leenahay maka ilaa beyt almaqdis waxa loo kaxeeyey inay u noqoto sababtay ku rumaysan lahaayeen inuu sabadana loo kaxayn karayo haddii tan ay tani waa
reasonkii ama aayadii ku tusinaysay ilaaha intanba dheelmiyey inuu inta kalena intan guuraysiiyey inuu inta kalena dheelmin karo. abi bakar bay u yimaadeen waxay dhahay saaxiibkaa wuxuu maanta sheegay maogti muxuu sheegay buu yidhi wuxuu yidhi xalaan guureeyo waxaan tegey bayt almaqdis dabeetana waa laysoo celiyo haddana way kan abi bakar isagoon wax kala sheegin wuxuu ku yidhi lain qaala dalika laqad sadaq warkana aa sheegaysaan hadduu isagu yidhi hadday nebi maxamed afkiisa ka soo baxday run buu sheegay buu yidhi waxay ku yidhaahdeen aw tusadiquhu anahu dahaba leyla ilaa bayt almaqdis wa jaa qabla an yusbix ma waxaad rumaynaysaa intuu xalayta qabtay bayt almaqdis inuu haddana yimi intaa waagu baryin makaasaad rumaynaysaa qaala nacam haa buu yidhi haa waan rumaynaya waayo buu yidhi inii la usadiquhu bima huwa abcadu min dalik tan wax ka fog baan ka rumeeyaa buu yidhi samada in gelin horiyo gelin dambaba lagala soo xidhiidhaan rumeeyaaye ma bayt almaqdis baan rumayn waayayaa buu leeyahy mustadrak alxaakim bay qisada ku aroortay culamaa ilxadiidna waa saxiix yeelaan sheekh alalbaanina saxiixyada kusoo aroorinay waxaan uga dan leeyahay saxaabadu xadkaasay yaqiintoodu gaadhsiisnayd wax kasta uu nebigu yidhi inuu run tahay wax kasta uu yidhi in lagu liibaanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam dee waa ognay inay sii itixaameen dabeetana imtixaankoodii oo dhan ilaahay uu daaqad u furay sida tv-ga loo daawado kale inuu u daawaday uuna uga jawaabay waxay weydiiyeen oo dhan nin habeen guuro bayt almaqdis ku tagoo ka soo noqday dee muu garteen albaabada masaajidka iyo dhanku u kala jeeda iyo istriidyadeeda iyo waxeeda muu garteen laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala u furo waxay su-aal weydiiyeen oo dhan buu uga jawaabay waxaan uga dan leenahay sidqu liimaan baa keensanayey inay nebiga ku daydaan waxaa kaaga filan xadiidkii khusayma saxaabigaasi axmed iyo abu daawud iyo qaarkood baan warinayaan culamaduna saxiixa ku yeeshay nebigoo safar ku jira ayaa nin reer miya neef geela ka iibsaday waa lagu heshiiyey heshiiskii markuu dhacay kadib ayuu wuxuu yidhi lacagta waxaan kaa siinayaa magaalada madiina sidii baa lagu soo dhaqaaqay beecii dhac laakiin waxaa mu-ajal uuna ah lacagtiisii la siinayay marka magaalada la tago in la siiyo safarkiiyo lagu jiro saxaabada dee may wada ogeyn ninkan inuu neefka ka iibsaday nebigu rag kale uu yimi oo gorgoriyey ninkii reer miyiga ah wuxuu yidhi lacagtii lacag ka fiican baabad ku helaysaa gorgoradii dambu haddana galay wuxuu arkay in qoladan igu kordhinayso iyaguna ma oga in nebigu ka iibsaday nebigu u yimi wuxuu yidhi neefka ma iga iibsanaysaa mise waan iibiyaa buu leeyay markaa ila meel kale u arko lacag kale la sheegay ma iibsanaysaa mise waan iibiyaa nebigu wuxuu ku yihi miyaanan kaa iibsan soo inagii kala iibsanay waxba maad iibsan buu yidhi ya kuu markhaatiya markhaati keenso saxaabadanina lamay joogin markuu nebigu ninkan wax ka iibsanayay iyadoo hadalkii taagan yahay ayuu saxaabiga kane soo gala maxaa jira baa la yidho waxay idhahdeen ninkii reer miyiga ah buu nebigu leeyahay neefkan kaa iibsaday isna wuxuu leeyahay igamaad iibsane markhaati keenso khusayma wuxuu yidhi anaa markhaati ah haddaa loo sheegayay in nebigu ka iibsaday deetana wuxuu yidhi anaa markhaati ah nebigu wuxuu ku yidhi khusaymata bnu thaabit oo maxaad ku markhaati furi doontaa waxaan markhaati ka ahay buu yidhi ilaahay rasuulkiisa inaad iibsatay neefkan ka iibsatay ninkaa inaad ka iibsatay se kayfa tashhad baa la saad u markhaati furaysaa waxaan ku markhaati furayaa buu yihi waxaan rumaysta oo maalin walba kaa rumaystaa samada inta war kaaga yimaado inaad noo sheegto ma geedka dhabarkiisa warkaad ka sheegtay baan rumaysan waayayaa buu leeyahy geedka dhabarkiisa warkii aad iiga sheegtay ee inaad iibsato adigu aada sheegayso miyaan rumaysan waayaya anigoo rumaysan in samada inta warku kaaga yimaado aada sheegto deetana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam
خزيمة بن ثابت إنكم مرخاتي فروال الله مرخاتي الرئيس يعني يكفي حنا بدل لنا يقينته هذا كرده ودتك إلهي رسولك سسنا بالرميان وأتكمل نقطة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحقيقة النبي محمد وركي سارد وحبك السوء عليني وحقيقة القرآن كونه لابتي أن الدقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة وحير إيه وحوين بينين وكقضي النوم وعجب قبط مسلم كمان تشوغا إنه هذا ويسدنا وان كقضيانيا مسخش السيد الله قال أنا وان كقضيانيا مسخش ما كانت قالت سبيل إحدى الله الرئيسية هذا ولا مدرك الله صهر الرئيسية ساسا لسه أنت أنا وان كقضيانيا نرش السيد الله معمولنا كقضيان مايو يا من عادات يا أبياش يا يهدي النقل كي حام كيجي أنا يا ريران ويا اللي ما بكون نقمينا أما فرنشي كوحي كيمي قال كوحي كيمي أيام بكون نقمينا هذا نقالتي هذا سياستي هذا برشتي هذا وحكالة طيبة لكن مركب مساجد اللي قال يا أمنا النبي محمد راعينا وهذا فاضل وحورك كسوكو بيا وحن أخرنا وآية من كتاب الله فقط كسود دكتي مثلا عبادات كما كصاف سنين أيضا نحن ندقال كامر كلا كصاف بحبي سود دقيس كما ورما يسوع الصلاة هي عبادة هي زكاة هي كوكان يا وحي كورما يسوع حقيقة أنا وريا في صبره ومصابرته وجهاده سيدي وصبري وجهاد تمي وسلامك وقوي وشجاع وعين القضية إذا النبي قول نبى إلهي وحين يلي لما أردنا المركة في شجاعته كقضية أما في جرأته أما في جهاده وحين في رسول الله إلهي رسول كيسا ننقصته الله قاله وحيري وحوي بك قضية يقين هذا قلبك قشو ومسلمku si dhaba uu u qaato wax walba waxaynu odhan doonaa ilaahay iyo rasuulkiisu maxay ka sheegeen dabeetana nolosha waa fududaanaysa nolosha adduuna waa fududaanaysa ta aakhirana waa fududaanaysa haddaynu nebi maxamed raaci weynana nolosha adduunyana waa adkaan doontaa وسيدا مانتا لوتون جلعصداي مسلمين ميل والبا وو أردن يهي يقول لي توبو أهان دونا آخرنا منا مبور روحة كسيه الرأي هذا يتنبو وحكواي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين